بيحلان كان نقادي وين إن بدن بوسوجيتم إن بدن وتاجنا وأرون هذا والله باللابي هل كي أبيها كبحي لهاينا إسبير ويجا والله باللابي وأنا لقلي قيبتي هوسة واللوسمي لكن واحد بدن باكده إذا لما يستركيس يكلينا سجى حتى لولكي لحاري لها لفتر كده لولكي إن لها جاي حتى هل كي بيها فريسان لهاين دامك بيه صاقل دمان ولا وذا داية هذا ضدكو كم عبان waxay ahayd xitaa in loo diyaariyo meel ay biyaha ku sii hakadaan oo biyaha sii fadhiistaan oo dadku ay muddo ay ka sii cabaan bay ahayd xitaa in loo diyaariyo lama xaqin oo meeshay biyaha fadhiisan lahaayeen xitaa looma diyaarinin dhaamka weyn ee ilaa markuu biyaha buuxsamo ilaa tuulada gaaray kuma jiro koob biyo maanta kuma jiro meel xoolaha ka cabaan malaha marka taana looma diyaarinin waxaan dhihi aniga dhaamka isaga in loo waxeeyo tan kale waxaan rabaa inaan ka hadla shilaabo biyo gelinteeda waa dhinaca farsamada degmada u riixday degmada wixii awoodeedeedii waxay dhaliil ku leeyihiin waan soo siinay laakiin dadku maxay u baahan yihiin dadku horta ma tababaran yihiin laftirkeedii dadku biyaha laftirkoodii hadday tubada ka jabto in dadka loo tababaro degmooyinka ay biyo gelinta ku jiraan in laba ruux xitaa loo tababaro oo qof meeshii ka halowda laftirkeeda hagaajin karo dee taana inaad samaysaan iska dhisaan mashruucan waxaan ku soo noqonay marsin iyo muxuu ahaa iyo gunagadan ku soo noqonay Sheekh Xasan oo mashruucan isagoo fadhiyaad wareejisay isagoo socda ma aadan wareejin degmooyinka iyadoo deyn lagu leeyahay wareejisay oo dadkii ka shaqeynay iyo waardiyihii iyo dadkii dhamaa ay deyn ku leeyihiin baad wareejisay marsin lacag bay u qabatay waxay u baahan lacagtii soo shubaa la yiri akoonka ku soo shubaan niri lacagtii shaqaalaha la bixiyo wuxuu mashruuc weyn u taagnaada ma aha hadda koorna 6 bilood hore waxaan ku ballanay degmooyinkana in dad laga soo qaado gudoomiyaasha inay yimaadaan gobolkana inay yimaadaan xafiiska biyahana uu yimaado xukuumadana dadka anaga xildhibaanadan inay isu nimaado mashruuca meel cad in lagu wareejiyo mashruuca meel cad in lagu wareejiyaan ku wada hadalnay ana waxaan soo jeedin lahaa mashruuca intaad u kacdaan oo team aad u xil saarta laftirkeeda oo akoonka lacagaha ku soo shubi lahaayeen loo diyaari sidoo ku dhaqaaqi lahayn falankeeda qaadaan one wash projectiga godgod iyo dolobay maamulka gobolka focalka biyaha ee gobolka jooga wayaan xogta waxa nala wadaagay ugu yaraan hadii ay lacagtii one wash ay yaraatay oo hal isku qabto degmooyinka hal isku celiya la dhahay in la ogeysiyo ahayd tanabar in xafiiska uu qaato tala ahaan bar inuu ogeysiyo hadda kadib arinta kale rabay inaan xoojiyo waxa weeyaan degmada Ceel Karri waxaan ka warhaynaa inay biyalaan baahsan ka jirta xilligan hadda la joogo inkastoo mashruuca one wash uu ka shaqeynaya haddana hal ceel la qoday ceelkaasi hay'adii Islamic Relief bambiga ay geysay inuu noqon waayo haddana bambi kale raadinaysay waxaasay nala wadaageen xil awaareed xunna maadaama lagu jiro arintaasna taliin aad u qaadataan sida loo dadajin lahaa falkeeda la galo arinta kale rabay taliinaan ka bixiyo hooyaan biigelinta baari si wanaagsan bay u socotaa shaqaduna way wanaagsan tahay waqtigeedana inuu ku dhamaanayo mashruuca ay u eegyahay laakiin mashruucaasi tuubooyin fara badan oo la keenay oo meesha yaala in consultantigi aan baaritaan lagu sameeynin bay sheegayeen in kastoo qodaalada ay sameeyeen taana waxaan ku tala bixin lahaa bar inaad la socotaan oo tuubooyinka sidii loo qodi lahaa falkeeda la galo mashruuca kale waa sarmaan waxaan ku tala bixinayaa maadaama xilli roobaadka inta la gaarin qandaraaslaha wixii aad ka caawinaysaan inaad ka caawisaan heshiiskii ay lahaayeen dhagaxa boondiga ee ku soo kordhayna meel isla dhigo mashruuca la gabagabeeyo maadaama baahi badan loo qabo waqti badan uu socday ayaan soo jeedinayaa maasantii dadka dowladda Soomaalida ku nool inay helaan biyo nadiif ah oo cabaan mas'uuliyadda horta xafiiska biyaha iskale qaab dhismeeyada hoose de hadii ay ku filgaroobaan dadka inay biyo siiyaan waxa ka dhigan tahay xafiiska baa filgaroobay marka mashaariicda weynka multi village-ka ah ee Soomaaliya kan dhulwaale qabri bayax harta sheekha iyo kan birqod gunagado dig marsin oo mashaariic aad u waaweyn waa mashaariic ay dhibaato ka jirto maamulkoodu xumada mashaariicda ka jirto waxay keentay in ay biyo la'aan xoog badan qabsato bulshada imikana dadku waxay soo wajahayaan abaaro marka in la yiraahdo mashruucaas marba wuxuu u taagan yahay albaashiska la saxiix waayay ama kuwana waxaan saxiix waayay dadkana ay ku biyo laadaan wax meesha yaala ma hadii bayaankii hore ee aad ansixisteen inaad mas'uuliyad u qadciseen oo dhibaatada yahay isagaan dib habayn ku sameeyno marka xafiiska biyuhu waa inay qaataan mas'uuliyadeeda mashaariicdaas filgaroobay iyo dadka meelaha ku nool biyo la'aanta haysata
in la yidhahdo maanta heshiis bay u taagan yihiin wax cuntami kara maaha marka waa in dib loogu noqdo waad mahadsantihin biyogelinta wakaaladda gotabik dhibaatay sheegteen biyihii ma shaqeeyaan tuubooyinkii way xumaadeen si guudna waxayba u dhaheen annagu maamulkeeda ma kari karray dhaheen degmo ahaan lacagta ay soo saartay wakaaladdu waa 104,000 bay dhaheen mushahaarka bes ee shaqaaluhuna waa 207,000 marka waxay u soo hesgelaysaa bointiga uu Axmed sheegay haddii wakaaladihii aynu ku wareejinay degmooyinkii oo ay maamuli waayeen soo in laga gudbo ma xal kale aynu u gudubno waad mahadsan tahay su'aasheeda markaan soo galo degmada Ruude 2015 laba ceel baa laga qoday qabalaha Zeerosoosiya tuulada Dibbe labada afkaan ku xiran yihiin xaaladda Ruudasna waad garanaynaayo biyo la'aan daran bay ka jiraan haddii labada ceel oo 2015 ilaa eega afka ku xiran yihiin goorma afka laga furi degmada Cayuun malaha walbiyood ceel male dhaam male laag male booyid baa u shaqeyso haddii yani booyadaas xumaatana de meesha dadkaas aad halis bay ku sugan yihiin in mashruuca loo dedejiyo hadda uu sheekhu maartay soo dhigay wasiirku baan talahaan soo jeedinayaa tan kale xagga mashruuca maartay mugweyn degmada Xamaro iyo fiiq waraabinayay isaga laftiisa maxaan ku dhahdaa waxoogaa cabasho ayaa ka jirta oo lacagta leyrka bishii 450,000 yay noqonaysaa degmooyinkiiba maxaan ku dhahdaayay maartay xagga awoodoodii way ka badan tahay marka in xafiiska laftiisa uu ka saacido de xafiiskii weynaaba miisaaniyad la'aan sheeganaya degmooyinkiina waad garanaysaa dakhligii iyo waxa saaranaya culayska jira marka bal arinta laftigeeda maxaan ku dhahayaa xafiiska wixii uu ka saacidi karaa inuu maartay cadeeyo waan soo jeedin lahaa ta kale tuulada afweyne oo kale degmada laga hida iyo ceelal badan oo afka ka xidhan ama maxaan ku dhahdaa biyo yareey baa jira hanti badan iyo lacag badanna way ku baxday marka arinta laftigeeda maan la oran karin de xagga sahanka biyaha marka la raadinayo ama daraasada la sameeyo dhaliilo ayaa ka jira maan la dhihi karin oo maartay meel ceel eega biyo yar badan ka saaka afweyne oo kale biyihiisu yar yihiin banka 2 jeer baa la bedelay yiraahdeen injineerkii meesha joogay baa maxaan ku dhahdaa warbixin qaldan xafiiska herdigan u gudbiyay bay yiraahdeen degmadu marka bamkaas la bedeli banka hadana waa la bedelay waxba muuna ka bedelin bay dhahan hadana biyo gelin baa socota biyihina aad u yar yihiin baa leeyahay marka arrimaha in la isqabadsiyo iyadana maartay bal talahaan waan soo jeedin lahayn aad iyo aad iyo mahadsantahay salaam alaykum degmada fiilta biyo kama cabin midda kale meesha haday shaqo ka socoto biyihii muxuu ahayd roobka tubooyinkii uu soo saaray yaa wali hal la celiyay in jira shaqaalana ma jiraan meesha muxuu ahayd ka ururiya xataa lama ururin banaanka yaalaan biyo muxuu ahayd tubooyinkii meesha hanti dawladeed lafteeda way ku lumaysaa midda kale muxuu ahayd shaqaalaha soo raajooga wax muxuu ahayd mishaar ay qaataan ma lahan mudane wasiir waxaa tiri kaydka biyaha ee fiiltu shaqadiisii waa la bilaabay hadda markaan xaqiijiyeyna lama bilaabin ayay dhaheen qoladii maamulka sidoo kale soorana wax wali shaqo oo laga dhaqaajiyay ma jirto iyaduna way taagan tahay soo adigu carabaabtay taa waxaan dhihi lahaa sideeda loo shaqo geliyo sidoo kale degmada Hudad runhaati biyo la'aan badan baa ka jirta Hudad mashruucaasi uu taagan yahay 6 bilood horena mudane wasiir waxaad ku jawaabteen waan dardar gelinaynaa qorshaha 6 biloodna hadana waxaad tiraahdeen 80% ayaan gaarsiinaynaa waxba lagama qaban runtii way taagantahay Hudad biyo gelintaasi labada ceelnaafkii ka xiran yihiin sidoo kale mudane wasiir degmada Qasaadho biyo la'aan badan baa ka jirta waana meel xuduuda runhaantii ceelka wabiga wiilmaal wuxuu u jira 16 kilomitir degmada in qorshe loo qaato tala bixin waan soo jeedin lahaa degmada Daroor waxa ka jirtay biyo gelin soo jiitantay oo raabto in badan la sugayay oo laga biyo gelinayay CR wash xagee ku dambeysay ayaan dhihi lahaa ta kale waxa jirtay qabalaha asaguna kaama bakor ee degmada Daroor oo isna biyo gelin laga waday oo wash program ahaa isagana xagee ku dambeysay aad iyo aad baan mahadsantahay mudane wasiir goljanno ceel waylaada saad sheegtay laakiin biyo ma laha mudane wasiir waxaan ku weydiin lahaa degmada goljanno jawaabteeda inaad si fiican oo faahfaahsan biyo la'aan baa ka jirta ceel way leedahay laakiin biyo la'aan baa ka jirta biyo la'aanta
ceel biyo yar ceella kama fogay Soomaalidu ku maamaadaa in laga jawaabo degmada Goljanno biigelinta bayaxo dib u dejinta dadka qoleji laga soo raray biigelintaas waxay noo sheegeen tuubooyinkii iyo deenabada inay kala weyn tahay mar walbana ay ka xumaato marka maxaa looga hagaajin laayahay aad baa mahadsantihiin degmada dig ma lahaan meel ay biyo ka cabto biyo ma lahaan ceel ma ay